madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Israa'iil ayaa maanta kulan muhiim ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Israa'iil mudane Gideon Saar. wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdigiisaba ku qaabilay hab maamuus diblomaasiyadeed oo heerkiisu sarreeyo. kulankan oo ku qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil ee magaalada Tel Aviv ayaa waxaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka saaxiibtinimo, iskaashi iyo adkeynta danaha wadaagga ah ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Israa'iil. kulankan intii uu socday waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray fursadaha iskaashi ee dhinacyada amniga, horumarka bulshada, dhaqaalaha, maalgashiga, tiknoolajiyadda, kobcinta xiriirka labada dal iyo arrimo kale. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil oo kulankaasi wadajir uga soo jeediyay warmurtiyeed loogu talagalay warbaahinta ayaa si wadajir ah carabka ugu adkeeyay in ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga dhinacyada badan ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacab, iyaga oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhismaha iskaashi ku salaysan is-ixtiraam, dano wadaag iyo horumar waara. Mawlid Kibaar, KMB Media.